وزارها iyo golaha wasiiradan runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celino waana ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo halka aad naga daawanaysaan waa SNN oo idinkaga imaanaya labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul alaaba waxaad naga soo gaartaan ama naga daawan kartaan dhammaan aababkeena Roku Boxka, Amazon Fire TV-ga, Android-ga iyo iPhone-ka. barnaamijkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa imaanshihii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo uu ku yimid dalka Mareykanka. Farmaajo waa markii ugu horeysay uu soo gaaro dalka Mareykanka asagoo oo aan wadan sharci Mareykan. Farmaajo sida la socotaan wuxuu iska dhiibay sharcigii. Iska dhiibada Farmaajo sharciga uu iska dhiibay dad badan iyo dawlado badan ay waxay ku abuurtay walwal iyo walbahaar. ma uusan sharaxin madaxweynaha sababtuu isaga dhiibay iyo waxyaabaha uu maagan yahay. balse waxaan qaadaa dhigi doonaa barnaamij aan ugu magac darnay Farmaajo faankiisa ma u fiirsateen ma nin falan baa mise waxbuu fahamsan yahay. waxaan uga jeednaa sidaad la socotaan Farmaajo United Nations ayuu khudbad ka jeediyay. waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed oo dal ajnabi dokumenti ka haysta ama sharci ka haysta inta sharcigiisa iska dhiibay ayuu wuxuu yimid United Nations-ka kana khudbeeyay. Farmaajo khudbadiisii waxa ugu muhiimsan oo dadka Soomaalidu ka sugayeen waxay ahayd arrimihii badda. Farmaajo arrintan wax badan oo la filayay oo ummadda Soomaaliyeed ka filaysay buu halkaa ka yiri. waxyaabaha Farmaajo ku soo qaatay khudbadiisa waxa ka mid ahaa in loo daayo arrinta badda ISJ in loo daayo international courts-ka in loo daayo. arrintaasi cad buu uga hadlay. sidoo kale waxaa ka horeeyay madaxweynihii Kenya oo runtii u muuqday nin laga adkaaday kuna dagaalamayay in badda ay Afrikaanku dhexdhexaadiyaan in dib loo dhigo in maalmo lagu daro in bilo lagu daro raadinayna si kasta uu ku heli karo in dib loo dhigo ama uu fursad kaga heli karo dowladda Soomaalida in ay Kenya fursado dheeraad hesho. arrintaasi dowladda Farmaajo oo madaxweynaha ka yahay dowladda Farmaajo waxay sutida u qabatay ama meel cad ka istaagtay arrinta badda. Farmaajo waxyaabaha uu khudbadiisa ku sheegay waxa ka mid ahaa in badda Soomaaliya arrinteeda halka loo daynayo waxa ka soo baxa oo international community ay soo saaraan ayaguna aqbali doonaan dowladda Kenya ay ku khasbantahay inay aqbasho asagoo isticmaalay binding. ergaas macnaheedu yahay sida annagu sharciga noo qabanayo waa iyaga sharcigu qaban doonaa. halka waxa ka soo noqon kara sidaan la socono dowladda Soomaaliya waa dowlad muddo burbursanay waa dowlad aad u tabardaran waa dowlad cadawgeedu aad u badan yahay waa dowlad ay ku haysato dowlad aan burburin ilaa 60kii dowlad ahayd ee dalka Kenya. kalsoonida Farmaajo waxa ka muuqata kalsooni aad u tiro badan oo ah inuu ku guuleysanayo.
Soomaalida xukuumaha maada khayr wax kaama dhibay sharta u tookay farmaajo ma aqbali doona haddii international community ama ISJ courtisku maxkamaduhu ay soo xukumaan maxkamadda internationalku ay soo xukunto inay dalka Kenya leedahay in dhulkaasi Kenya leedahay farmaajo wuxuu u muuqdaa qof ku qanacsan in waxa international community ay soo saaraan ama ISJ soo saarto inuu aqbali doono afkiisana uu ka yiri arrinta walwal badan bay leedahay dadka Soomaaliduna badankood waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin in ay halka ku guuleysan doonaan wuxuna waxa maxkamad yaala oo wax ka soo bixi doona aan la aqoon kalsoonidiisii iyo erayadii uu ka yiri waxa ka mid ahaa sidan hadda aad maqli doontaan ila dhageysta khudbadiisa oo gaaban. Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court. As a matter of international law, the court's judgment will be binding on Kenya as well. And we trust that when that judgment is issued and the boundary is established, a lasting settlement of this long-lasting dispute will finally be achieved. Inta haddaan uga gudubno khudbadda United Nations uu ka jeediyay farmaajo oo ahayd in badda Soomaaliya ay uga dambeyn doonaan ICJ inay uga dambeyn doonaan daanta ugu dib farmaajo wuxuu tagay Washington farmaajo wuxuu aad ugu faanay in ay dawladda Soomaaliya ay gaday dawladda Soomaaliya ay gaday safaaradii ugu horeysay muddo ay ka soo wareegtay ilaa 90kii ilaa hadda dawladdii ugu horeysay oo safaarad gada inay dawladdiisu tahay balse wasiirkiisa maaliyadda ayaa waxa si cad u sheegay dhaqaalaha lagu bixiyay safaaradda inay ka timid dawladda Qatar waxaad inta khudbadda uu farmaajo jeediyay inay ka muuqatay in ama uu yiriba in dhaqaalaha safaaradda lagu iibshay inay tahay dhaqaalihii lagu bixin jiray mooshinada oo la urushay taa marka macnaheedu waxa halka ka muuqda dhaqaalaha ugu badan ee dalka Soomaaliya lagu burburin jiray inay wadamo shisheeye ka imaan jireen taasoo ay ku cadeynayso in dhaqaalaha hadda yimid inuu Qatar ka yimid ayna goysay in safaarad Soomaaliyeed ee Washington lagu gado sidoo kale guri hore u lahaan jiray safaaradda Mareykanka guri oo safaaraddu lahaan jirtay Washington ku oo jiray ayaa wasiirka maaliyaddu waxa uu asna afkiisa ka sheegay in gurigii la gaday dhaqaalihiisina ay safar ku baxeen arrintaasi kulli waxa muuqata in farmaajo teamkiisu dhaqaalaha hadda ay wax ku gadeen inaysan ahayn dhaqaale dalka ka soo baxay ay yihiin dhaqaale laga keenay international community ama dawladda Qatar laga keenay marka dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay u qabaan dhaqaalahan hadda laga keenay oo wax lagu gaday in dhaqaale dalka ka soo baxay uu yahay iyo in dhaqaale dawladda Soomaalidu ay sameysay ay tahay arrinta marka waxaan rabaa dadka Soomaalida dareensiino oo sharaxno in dhaqaalaha maanta la helay ay isfasirayaan afka madaxweynuhu uu ku hadlay iyo camaladii lagu yaqaanay dadka Soomaalida ah oo siyaasiyiinta khaasatan baarlamaanka madaxweynuhu aad ugu ceeshay dhaqaalahan aad aragteen aan maanta hayno waa dhaqaalihii mooshinada lagu keeni jiray oo aanu safe garaynay arrintaasi dhinac marka laga fiirsho waa faan oo dawladdu hadday dhaqaale badan oo soo gali jiray oo la isku leyn jiray ay maanta
baahi badan oo dadka Soomaaliyeed ay qabeen qayb ka mid ah ku xaliyeen arrinteedaasi waa aad bay dadka Soomaalida u farxad gelinaysaa. sidoo kale farmaajo aad u faraxsanaa farxad badan ayaa ka muuqatay furitaankii safaaradda. waxyaabihii uu aadka ugu faraxsanaa waxaa ka mid ahaa in uu safaaraddii Soomaaliyeed oo asaga iyo dowladdiisu ay maanta bildinka gadeen uu furay. midda labaad farmaajo faankiisa waxaa ka mid ahaa oo aysan dad badan fahmin. waxaa ka mid ahaa farmaajo sida la sheego 1985 wuxuu ka mid ahaa ardadii loo soo diray dhaqaalihii qaranka ku soo baxay yimidna Washington dhalinyaradii markaas ka shaqaynaysay oo junioriska ahaa inuu ka mid ahaa asagoo taas ula jeeda inuu la hadlayo siyaasiyiinta Soomaalida oo qaarkood aysan weligoodba siyaasad ka shaqaynin oo ay tahay markii ugu horeysay ay siyaasad ka shaqeeyaan sagaashamiyadii kadib. dad badan oo Soomaaliyeed uma fahmin faankaas in uu ku faanayo kaliya waxay dadka Soomaaliyeed isan fahmin in uu farmaajo uu la challenge garaynayo ama la wadaagayo waxa uu sameynayo nin khibrad u leh inuu yahay oo uusan falnayn. khibraddiisana runtii uu muujiyay in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo sharciga iska dhiga, madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo dawlad jiiraanka Soomaaliya ah la tartama ama iska dhiciya ilaa UN ka yimaada, inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo gada guri kamid ah guryaha ay dawladda Soomaaliya leedahay, inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay aysan wax qabyaalada ilaa hadda afkiisa isa ka soo bixin. waa madaxweynihii ugu horeeyay oo aan ilaa hadda u jawaabin dhammaan siyaasiyiintii sida qabyaaladaysan u hadlayay ama maamul goboleedka ha joogeen ama ha joogeen caasimadda ama qurbahaba ha joogeen. waa madaxweynihii koobaad oo Soomaaliya haysta dad shacab ah oo aan qabiil ku taageersanayn oo ku taageersan dawladnimo iyo afkaartiisa. waa madaxweynihii koobaad oo Soomaaliya oo aysan ka muuqanin qabiilkiisu inuu taageersan yahay. waxaasoo dhan farmaajo ma falne waxbuu fahamsan yahay. diblomaasiyadda Soomaalida iyo qaabka u shaqeysa waxaad moodaa farmaajo inuusan ka duwan yahay. waxaad moodaa in uu faanayo oo u faanayo generationada dambe iyo kuwii horeba oo muujiyay in uu u baahan yahay ciddii rabta in asaga challenge garayso ama asaga la soo tartanto in meel sare ay caleemaha ama usha ka goostaan oo aysan meelaha hoose oo sida gobolaysiga, sida qabyaaladda, sida isbaar dhigashada, sida daliishashada la daliishanayo in qabaa'iladeen hub haysan jireen, in isbaarooyin lahaan jireen, in wiilal meel ku xirxiran la soo celin jiray. waxaasoo dhan in runtii ka adkaaday. waxyaabaha uga adkaadana ay diblomaasiyad tahay. diblomaasiyaddu madaxweynuhu mar hadduusan u jawaabin qofka khaldama waa uu ka adkaaday waana ka raayay. faanka uu faanayay marka farmaajo oo aadka u faanayay dad badan waxay u qabaan farmaajo inuu falan yahay, go'aano badan oo qaadanayo ay u arkaan in uu khaladaad badan sameynayo. balse dadka dhalinyarada ah
iyo dadka aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee hunguriga siyaasadeed isugu jirin ee dalka iyo dadka raba aad bay u soo dhaweeyeen waxyaabaha uu sameynayo waxyaabihii uu ku faanay iyo sidoo u faanay waxaan rabnaa inaad barnala daawataan markii uu furayay ama uu maqaska ku goynayay safaaradii ugu horeysay oo building Soomaaliyeed ay leedahay 90kii kadib la furo oo dhaqaale Soomaali gacanteeda dhaqaale ay Soomaali ama soo barida ama cid kale ha soo siisa iyadoo leedahay ku gadatay oo madaxweynuhu furay waxyaabihii uu yirina waxa ka mid ahaa sida tan الله ما حدث كله إلهي نحن ما هذا المر وبوانو واجب ومركي وسهل أنت هاي أنا جهوش يعني أني نفوذي يمرات كان كلهين يوين كا يهلكني أنا معناه إذا كان إلهي دين فوذي أنا هلكن تمادان أو قارك الملف فوق تمادان وعن رجينا إن شاء الله سنة وضع قفر بنو ونقضه هويجيس يقولجيس وحن هاد علنا يا سفيرك يهون وذا النض سفارته oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad ballaaran qabtay oo suurtageliyay runtii inay waqti badan iyo duhur badan galiyaan sidii loo heli lahaa location-kan oo anigu waa kala qaana magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarada badan ay ku yaalaan waxaa la fiilayay waqtidan oo kale in aan haddaan nahay Soomaaliya iyo xaaladan ku jirno meelo fog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno لكن الحمد لله إلهي وما هذا أسكاله إن ذكي وحلول هذه يعتبرتنا سجني وناصر تكشي إن المانت ماشان سوي مع إنه سفارة أنا هلكن هنكفرهم وحنو مهد علنا يا جالية صوماليين مالك كلا فوق كيمت يكوا DC إيو فرجينيا حبر هذا نوجي يمت أو كسوق قبلي حفلة وجعلان لها sidii la ii doortay hadda ay ugu horeysay inaan Mareykanka ku soo noqdo oo qorsheygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeen waxa way sidii noo taageereen waagin qaran aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dawladda iyo wadaniyadooda mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dawladooda insha Allah waa idin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaas sheegana waa booqanaya haduu ay biiraahdo waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyay oo suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxaysa in wax loo beeqaamiyay wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaradan oo ku taalo Washington runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad loo soo qaban qaabiyay quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynayso xafiisyada u noqon doona aad runtii ugu faraxsanahay aniga hadde meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaradana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo maray marxaladaha la soo maray waa aqaanaa ka shaqeynayay sidii dawladda Soomaaliyeed ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa
oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magac weli ma leedahay meesha ha oo ay deganaayeen dawladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dawladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taala aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ay dawladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyay oo horeen u joog jiray Abdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u galiyay ilaa hadda markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday hadda safaaradii dhan baan ku weynay marka iyo magaceynayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillah hadda Ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadano safaaradda mugta leh oo meesha ku taala si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in la rabo in la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeen inaan soo celino sharafka marka annaga ajandayaashana noogu horeeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsan inaan nahay dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqada oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto hadda waxa weeye waxa moogtahay waa wax dheeraada way marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillah inaan raahno intaas oo wanaag Ilaahayna siiyay marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadena soo celino laba waxa noo aha inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taaganahay oo foosho xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba dee xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaas waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka sidoo ahaan jiray waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii la isku ridi jiray yaan meel dhignay ma fahamteen madaxweyne iyo barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen hor xasiloonida waa meeshaas meesha ka imaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa ma laha cid kula macaamilaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminaya inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dawlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dawlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa kaliya ee dawlad ku shaqayso waa dawladdaasi inay tahay dawlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama dhaxadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa
hadday isgaartana waa barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuqmaasuqu wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meeshayna gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo Soomaali ah soo saas ma waxa weeye dawladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar u leh ma laha dadku waxay isku khaldaan maamulaha iyo dawladda waa idinka marka dawladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq hadaa madaxweynaha caayisaan idinkaas caayay maxay idinkaas taan qaran iga dhigtay aniga marka qof is caayay ka warrama marka dawladdan idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tagin yaa loo baahan yahay in la istoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in la istoosiyo oo la isaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna marka waxa loo baahan yahay annagoo wada jirna dawladdeena inaan dhisano annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisano oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo qabiil wax waana tari waayay qof jeclaysin wax waana tari waayay qabyaalad waana tari waayay waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo Soomaali isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horeeya wada lahayd ee ahay dawladnimo iyo dal iyo dad kadib faankaas kadib waxa halka ka qayb galay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbaha khaasatan qolada reer Mareykan waxa ka qayb galay culimadii Soomaaliyeed dhalinyaradii ugu firfircoonayd oo abaabulka special reer Minnesota baa ka qayb galay waxa ka qayb galay dhammaan taageerayaasha nabad iyo nolol arrintaasi marka waxay maanta daah furtay ama ballan qaaday ama muujisay in farmaajo uusan fanlayn ee wax fahamsan yahay marka dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa waxyaabaha khaladaadka oo farmaajo iyo dawladdiisu sameeyaan waanu sheegi doonaa waana sharaxi doonaa balse maanta oo bisha 28 bisha tahay waxaanu ku soo gabagabeynaynaa farmaajo ma falna waxbuu fahamsan yahay 2020gana waa isu diyaariyay ciddii marka challenge gareyn lahayd oo wax la qaybsan lahayd ama la tartami lahayd waxyaabaha uu qabtay kaga hortagi lahaayeen waa inay diyaarsadaan waxaan idin leeyahay anigu Maxamed Wardheere sidaas iyo nabadgelyo